nabad ay daawadayaal meel kasta ka joogtaan daafaha dunida muddo kadib isku soo noqod waxan muuqaalkan waxaan ku eegi doonaa xayawaan cajiib ah oo xayawaanka lagu magacaabo fiidmeerta ama kibilida. fiidmeertu waxay ka mid tahay boqortooyada xayawaanka animalia bahda lafdhabarleyda gaar ahaan bahweynta naasleyda. bahda cilmigu saynisku waxay ugu yeedhaan Chiroptera xayawaanka fiidmeerta. waxay isku raacsan yihiin taariikhyahanadu baara xayawaanaadka iyo cimrigoodu inay xayawaanka fiidmeertu tahay noole soo jiray qarniyo aad u badan. sidoo kalena qaaradii ugu horeysay ama dhulkii ugu horeeyay ee laga helo xayawaankan cajaa'ibka ah fiidmeerta waxay ahayd qaaradda Ameerika. luqadda Ingiriisiga waxaa loogu yeedhaa Betis, halka luqadda Carabiga loo yaqaan al-khafaafish. afka Soomaaliga ama luqadda Soomaaliga fiidmeerta waxaa loogu yeedhaa fiidmeer ama sidoo kale kibilib oo deegaanada qaarkood looga yaqaano. fiidmeertu cimrigeedu waxa uu gaadhaa ilaa 16 sano. sidoo kale miisaanka jirkeedu waxa uu u dhaxeeyaa 1.2 kilogram ilaa 1.4 kilogram. waxay leedahay fiidmeertu 38 hidde-side. sidoo kale fiidmeertu sadkeedu waxa uu gaadhaa 42 ilaa 63 maalmood. waxay ku qaangaadhaa fiidmeertu 3 ilaa 4 toddobaad. waxay ka mid tahay xayawaanka leh dhiigga diiran fiidmeertu, kuwaas oo wax quuta maalintii ama habeenkii gelinka hore ama fiidka hore. sidoo kalena fiidmeertu waxay leedahay ilko. inta badanna waxay quudataa fiidmeertu cayayaanka duula. waxaa jira 1400 oo nooc oo fiidmeer ah. sidoo kale waxaa loo qaybiyaa fiidmeerta 3 nooc: qaar cuna midhaha, qaar cuna cayayaanka, iyo qaar quuta dhiigga dadka ama xayawaanka. waxaa sidoo kale jira 2 nooc oo laga helo Soomaaliya oo kaliya lagu kala magacaabo Somali Siratin iyo Noromisha Somalika. waxaa cadeeyay 2 nooc oo sheegay 1901 saynisyahan yimi dhulka Soomaalida oo ku xil dheer xayawaanka iyo baadhistooda. fiidmeertu waxay leedahay 2 naas oo ku yaala jirkeeda qaybta sare. sidoo kalena fiidmeerta ugu badan caalamka waxaa laga helaa bariga Aasiya. waxaa intaas dheer fiidmeertu inay ka mid tahay xayawaanaadka ugu cajaa'ibta badan caalamka marka la kurgalo ama daraasado badan laga sameeyay. fiidmeertu waxay ku nooshahay kaymaha, waxay u nooshahay koox. sidoo kalena indhaha fiidmeertu waa qaar daciif ah. waxaa intaa u dheer ee cajaa'ibta waxay tahay fiidmeertu waxay seexataa iyadoo foorarta oo ka soo laalaada geed ama halkii ay qabsan karto kolba. waxaa ku dhaca fiidmeerta xanuuno badan kuwaas u gudbi kara aadamaha. waxaa ka mid ah fayraska Ebola, fayraska marbuunka, fayraska SARS, fayraska MERS iyo sidoo kale fayraska caanka ah COVID-19 kaasoo adduunyada ka salfaday dad ka badan 2 milyan. ugu dambeyntii fiidmeertu waxay heshaa dhiigga bilaha ee caadada sida bini'aadanka oo kale sida sheegtay diinta Islaamku. sidoo kalena waa cadeeyay saynisyahan wax ka dhigi jiray jaamacadda New York, isla mar ahaantaasina ku takhasusay habka taranta ee fiidmeerta. dhammaan shimbirta fiidmeerta la yiraahdo ma wada hesho dhiigga caadada. waxaa hesho oo kaliya 2 nooc oo kamid ah, mid dibka dheer iyo sidoo kale mid sangeedu uu samaysan yahay sida caleenta oo kale.